الله وبركاته كسودو عمر بودكاست مقالكينا قيبتي لبعض waxaanu kaga hadalnaa podcastigeenan iyo kanaalkeenanba shan shay baynu kaga hadalnaa shanta shay oo ah financega emotional relationship god iyo health ya taasoo focus ka saarno dhaqaalaha loo sameeyo emotionalka qofka soo control kara emotionalkiisa iyo sidoo kale soo xiriir u dhisi kara ama dad ku xidhan asxaabtiisa oo noqonayo san mawduuci hore kaga hadleen iyo sidoo kale sida ilaahay xiriir u yeelan karayso adigoo adduunyada ordaya adadana soo kale aad sameyn karayso inaad ilaahay ku xidhnaato dantaada garanayso taakhirna aad u shaqaysanayso iyo caafimaadkaaga soo dhisileyso sameeyay jid active ama noqdo caafimaad maaha body waaweyn soo saarta laakiin aad noqoto qof productive qof caafimaad qaba noqonay sportiga sameynay concert sameynay soo muuqaalkeen waxaan dhaxkali doonaa su'aasha ugu badan dadka badan soo weydiiyaan oo ah qaybta financega soo waxaan ku bilaabi doonaa finance markay noqoto dhaqaalaha markay noqoto xageenu ka hadalna maanta waxaan ka hadli doonaa qaybta financega inta barnaamijka gudaha hadii nagu cusubtahay ku soo biir hadii ay tahay nagu cusubtahay hadii gudaha galo waxa weeyaan financega soo dhaqaale markaynu leenahay waxa weeyaan ama dhaqaale sameyn ama dhaqaale save gareyso ama dhaqaale soo badasho kale okay soo marka waxa weeyaan waxaan focus ka saarnaa waa maxay dhibta ugu badan igu soo laabata loo manage gareeyo sa loo save gareeyo sa wax loo dejiyo sa istaraatiijiyo loo sameeyo soo inta aynu gudagelin waxa weeyaan waxaan awood sameyn doonaa marka koobaad dhaqaalaha ku soo galaysa aad manage gareey karaysa ma la socotaa inta ku soo galaysa ma la socotaa inta ka baxaysa ma ogtahay waxay kaaga baxayaan si u dejisataa malada istaraatiijiyo waxa weeyaan dhibta ugu badan waxaan markaa dhaqaalaha bilaabay nolosha soo martay in dhaqaale badan uu soo galay laakiin dhaqaale isla markaa uu baxay aniga garanayso loo manage gareey waxa soo galay waxa soo baxay ay isla kaayeen at the same time ya book jarmala oo la yiraahdo financial faqaahid oo booda sheef la yiraahdo la qoray ban akhriyay bookgaas markii koobaad baa indhaha ay furay tan ka bacdi tolo waxaan galay qaybta personal development-ga inaan anu shakhsiyan noqdo qof finance ka shaqeysa barta u gala jiga ay noqotay wax leadership-gayga oo xiiseynayo oo anigu rabo inaan baro inaan ka sameeyo noqoto soo waxyaaladii iga caawiyay in aan qaybta ka soo baxo anigu bilaabayna wax saf gareeyo maanta bilaabayna wax ma galiyo isla markaas aan sameeynaa way dhacay mise jarba waxa sawirtay ma kugu dhacday in aad bilowday budget dejisatay aad rabtay inaan inta saf gareeyaan raba inaan inta wax galiyaan raba haddana 2 bilood 3 bilood markaa wada ajuujis sababtoo laga yaabo inaad ku badisay soo waxaan ku sameyn doonaa insha Allah sir aniga ay shaqeysa kaasoo ah marka koobaad lacagta inta ugu badan 60% meel baad dhigaysaa 40 baa soo haray soo 60 ka soo haray waxaad ku bixinaysaa waxyaalada festiga ku waxyaalada joogtada ku ah ay tahay waajibna samayso biilka guriga aad bixinayso kale kirada guriga aad bixinayso biilka guriga siinayso ama family-ga u diraysa ama adiga wax kugu baxay kirooyinka ama kontraayada ku jirto telefoon ha noqoto sim card ha noqoto wax waajib ah bil walba inaad bixiso oo laga sugayo kuwaas aad 60 ka qodeynaysaa 40 ka soo dhimay 40 ka soo qoondeyn karaysaa haddayna 40 ka goy kareen waxa sameyn karaysaa inaad 80 ka dhigto 20 soo reebto ladisay waxaan iman doonaa 20 soo reebtay 20 kale haatay wixii ku soo galay hadduu kun ku soo galay 200 baa ku taala haday 200 ku soo gashay waxa ku taala 4000 baa ku taala haday ku soo gashay 5000 haday ku soo gashay waxa dhiganaysaa waa 20% so just 20% oo kale haday lacagtii ku soo gashay baa waxaan u qaydoonaa laba nooc may 20% waxa la safety ina safety kato emergency haday dib ku soo kordho asameyn doonta dadka ka soo saarnayso ladisay safety-ga 10% baa soo haray 10% waxa sameyn karaysaa risk ka gelin karaysaa waxa sameyn karaysaa soo kale budget baa u dejin karaysaa ama aad leedahay long term waqti dheer haddii aad leedahay 5 sano 10 sano wax maal gasho wax aan u baahnina samaysato soo 10 ka waxa oranayna halkaas dhigtay waa 10 ad risiko ama long term aad gelinayso soo 10 ka hadaynu focus ka saarno waxa weyn qalabkee gashan karaysa ko action ka gashan karaysa ama stocks ka loo yaqaan shirkadaha waaweyn oo kala brand inaad ka iibsato baartay ka bacdi aad long term ku xisaabtanto sanadkii aad contract aad la galayso ay ku xiran tahay imse percent baa sanadkii la galaya 15% 20% shirkadaha Soomaalka kugu jira share kugu jiro sharekaas oo bil walbaaba passive ama ka soo galay soo lacagtaada meel kale timaado laakiin dhaqaale ku soo gelinaysa واجد شركة أن مال قشطو روبلر رجال بالده إن الصومالية له أمريكا كدجن نيويورك كدجن ستوك سوق الشقية وحوين لينك هو سنة وسوق له روبلر كهلا سبه جدي وجوسية إن المال قشن كريسو بقول إيرو إلا يشون طبعا كون لبعضهم كون واحد ربطه مدك لا أدوك أدور نسو ما حد ربطه ما صدق بلودنا ما قشط ربطه ما حد ربطه لح بلودنا ما قشط ربطه ما حد ربطه نحل سنة ما قشط ربطه ما حد ربطه طبعا سنة لبعضهم سنة سو بس كسر وقت كهلا لينك هو سوق قرية هدي الجري ملك مال قليل هدي كان حسين سر ستوكس كيقاب كلو مال قشطو أما شركة ساشيرس كلو يبسطو igu soo qora muuqaal baan iga soo diyaarin doonaa qaabka saaw sameyn doonto iyo qaabka loo maal gashado iyo sida long termiga iyo waqtiga koobanba loo dhiso soo waxaynu niri 10% wuxuu noqonayaa 10% oo leedahay long term baa ku xisaabtamaya waqti dheer baan galiya raba 10% kale soo haray waxa oranaysaa okay safety waxaad rabtaa waqti kooban oo kale leesay inaad dalxiisna gashaa rabto kale ama inaad rabto kale inaad hawl dhaqsa ama ilmahaaga ama ilmaha dhashay ama inaad guursanayso soo waqti kooban short term baa u diyaarinaysaa short termigaas oo waqti kooban maybe sanadka soo socda inaad dalxiis baxda rabtaa 10 ka inuu ku noqdo waxa ku dari karaysaa laakiin wuxuu ku noqonaya wax festi markuu soo galo 10 ka meel ku samee soo haddaan soo koobo waxa weeye waxaad u qaybinaysaa haddaad investment inaad bilowdaad rabto sa loo master kareeyo lacagtaada waxaad sameynaysaa
inaad samayso 20% aad gooni dhigto 20% noqonaysa waxaad maal gashanayso aanad waxba uga baahnayn 80% kale waxaan leeyahay waxaad samaynaysaa wax alaali waxaad u baahnay wixii fastiga kugu waxa waxaad u sii saari karaysaa haday kaaga baahan tahay 20 baa ka soo saari karaysaa oo activity-kaaga u diyaarsan karayso sida dhar ama shopping ha noqoto ama dalxiis aad goob aad galaysaa noqoto ama waxyaaladii ka koobnaa dibadda ku cunaysay ama cuntaad u baxaysay waxay ku 80% guulaysato tan waxaad u samaysan karaysaa hadhow tolinaad dejisato okay 15 cotton waxaan isticmaalayaa waxa soo gala maalintii daily-gayga inaan noqdo cotton waxaan u baahanahay 20% inaan ma gashado 30% inaan ganacsi ku bilaabo ama wax activity ku sameeyo oo bilowdo inaad save gareyn karayso soo wadadaas wadada ugu fudud qofka ku bilaabayo inuu wax save gareyn karayo in lacagtaada aad master gareyn karayso soo muuqaalka ku xiga waxaan sameyn doonaa insha Allah waxaan ugu wadaagi doonaa sida investmentiga uu shaqeeyo qaabka loo maalgeliyo soo haddii aad jirto mawduucyad xiiseynaysa haddii uu wax ka caawiyo la wadaag waxaan kaloo sameyn doonaa insha Allah in bil kastaaba aynu abaalmarin bixin doona abaalmarintaas oo noqon doonta inaan qofka dhaqaale ku taageero sidoo wax maalgashan lahaa sidoo wax u sameeysan lahaa uu maalgelin lahaa inaan dhaqaalahan qof u guuleysto dhaqaalahaas la soo wadaag doono iyo sidoo kale in uu qofku aan sameyn doono course uu soo sameyn doono soo mawduuca saan ugu sheegay wuxuu noqon doonaa kanaal loogu talagalay dhalinyartu inay dhaqaale sameyn karayso inay wax ka barato inay wax ka faa'iido soo noqon doona insha Allah si social media-ga anything aad uga faa'iideysanaysaa haddii jiraan barnaamijyo kale oo